qaalaha ciday u shaqeynaysa labadooda ilmood ku daaratay cudurka dilaaga ee HIV-ga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. reer lahaa laba ilmood, naag shaqaale ay ilmahooda uga tagan jireen. ilmihii yaraa ayaa xanuunsaday kadib markii ilmihii cudurro badan laga baaray, wax cudur waa laga waayay. markii dambe dhakhtarka ayaa wuxuu ku yiri waalidkii ilmahan ka qaada cudurka HIV-ga ayaa laga qaadaya. markii ilmihii laga qaadana ilmihii positive ayay noqdeen. labadii waalid way yaabeen, markaas ayagana cudurka HIV-ga laga baaray. hooyadii aabihina negative ayay noqdeen, cudurka ma qabaan. kadib dhakhtarka ayaa wuxuu weydiiyay guriga yaa niina jooga. markaasay dhaheen qof kalena nama joogto, hal gabar oo shaqaale kaliya ayaa nana joogta. gabadhii shaqaaliya ayaa la soo waday, cudurka ayaa laga baaray. kadibna waxay noqotay positive, ayada ayaa cudurka qabta. naagtii markii cadaadis badan lagu sameeyay ayaa la weydiiyay sidee ilmahan cudurka ku qaadeen. naagta ayaa sheegtay inay xasidnimo badan ee hooyada ay ku sameyn jirtay, inay xasidnimada darteed ilmaheeda ay cudurka ugu daaratay. naagta ayaa sheegtay inay farteeda intay jarto ilmaha dhuuqsiin jirtay dhiigeeda, marmarna cuntada ugu diri jirtay, yacni juusaska markay shiidayso ay ugu diri jirtay ilmaha dhiigeeda intay farta iska jarto. naagta ayaa sheegtay naagta inay cadaadis badan ku sameyn jirtay. marka ma tahay qof shaqaalo qorta, annaga dhan waa wada qornaa dalkii haddaa wada joogno, Nairobi baa u badnaatee. insha allah ilmaheena aan ilaashano, naagna cuntayeena u dirsanin. waxaa la lahaa ii sheeg cuntooyinkana haliska ilaaliyo. waxa naagtana xasidnimo yaa lagu sameyn. qofka haddaa xasidnimo ku sameyso, meesha keliya ka jilacsantaa waa ilmahaada ayuu kaa ataag gareynayaa. marka haddaa tahay qof shaqaalo qoranaya, u dabacsanaaw, una jilacsanaaw, unana dhaqan sida aad rabtid adiga in lagula dhaqmo. bal hooyadaa bal hadda fiiri waxa ku dhacay ilmaheedii mustaqbal la-aan. aad baa wallahi qalbiga iyo xanuuna ilmaheedii, yacni mustaqbal la-aan ayaa ku dhacday. marka is ilaaliya Soomaaliya.